madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka soo ambixi doona maalmaha soo socda xarunta ama caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho isagoo ku soo wajahan magaala madaxda ama caasimadda maamul goboleedka Waqooyi Bari ee Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa filaya in uu halkaas kaga qayb galo xaflad caleema saar oo lagu caleema saarayo madaxweynaha maamulkaasi oo dhawaan la doortay. Dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa waxay qaadaysaa tallaabooyin cadcad oo ay kaga hortagayso faragelinta dibadda kaga imanaysa dalka Soomaaliya iyadoo oo dhawaan ay isku dayday dowladda Israa'iil in ay Soomaaliya kala qaybiso. Dalka Imaaraadka ayaa isaga laftiisa lagu tuhunsanaa laakiin gadaal ka soo baxday cadeymo cadcad in uu garab ku siinayo Israa'iil sidii uu Soomaaliya ay saldhig uga samaysan lahayd. Maanta ayaa dowladda Soomaaliya waxay soo saartay go'aamo cadcad iyadoo oo golihii wasiiradu ay isku raaceen in dhammaan heshiisyadii lala galay dalka Imaaraadka ay waxba kama jiraan yihiin oo laga bilaabo maanta ayan ahayn wax suurtagal ah. Heshiisyada dowladda Soomaaliya ay soo afjartay waxa kamid ah heshiisyadii siyaasadda, difaaca iyo wada shaqaynta iyo xagga horumarinta iyo ganacsiga oo iyada lafteeda ay raad ku yeelanayso oo ay magacaabeen dekedaha Kismaayo, Berbera iyo magaalada Boosaaso dekeda ku taala bariga Soomaaliya. Heshiisyadaas ayaa dhammaan waxay noqdeen wax aan waxba kama jiraan maadaama heshiiska laftiisa ay kamid ahayd in wax dalka Soomaaliya dan u ah in lagaga shaqeynayo heshiisyadaasi uusan marnaba khatar ku noqon karin dalka Soomaaliya. Kala shaki iyo shaki weyn baa soo kala dhex galay ururka Jaamacadda Carabta kadib markii la ogaaday in Imaaraadka Carabtu ay la shaqeeyaan dowladda Israa'iil faragelin ba'an ay ku hayaan iyagoo caawimooyin iyo iskaashi militari iyo ganacsi ku soo gabanaya wadamada wadanka Suudaan, dalka Yemen iyo dalka Soomaaliya iyo wadamo badan oo kale oo ku yaala qaaradda oo ay kamid tahay Liibiya oo ay hore u burburiyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa go'aan waxay ku qaadatay in ay dhammaan heshiisyadaasi ka baxdo si ay u badbaadiso dalka midnimadiisa. Sidoo kale dhawaan ayay ahayd markii dowladda Sacuudigu ay 24 saac u qabatay dowladda Imaaraadku inay kaga baxdo dalkaasi Yemen si loo badbaadiyo midnimadiisa iyadoo oo qarka u saareyd in dalkaasi uu u kala qaybsamo laba qaybood. iyadoo la tuhunsan yahay qaybtaas marka kala go'aysa lafteedu inay iskhilaafsaneed oo la aaminsan yahay inay laba qaybood u sii kala go'i lahayd oo meeshaasi ay ka soo bixi lahaayeen duweylaad ama wadamo yaryar oo hoos yimaada Imaaraadka iyo Israa'iil ay maamulaan kadibna ay ka samaystaan saldhigyo ciidan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay go'aan ku gaadhay dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku biirtay xulufada Turkiga, Sacuudiga, Masar iyo Pakistan ee iska kaashanaya in la xasiliyo siyaasadda iyo amniga iyo midnimada wadamada Islaamka gaar ahaan kuwan Carabta ee hadda aynu kor ku soo magacawnay khatartu ay soo wajahday. Go'aankii golaha wasiiradu maanta ay qaateen ee ay ku joojiyeen dhammaan heshiisyadii Imaaraadka ay la gashay dowladda Soomaaliya ayaa waxa u dhignaa sidan. Ay ku beegan tahay 12 bisha January sanadka 2026 kaas oo ay ku difaacayaan midnimada wadajirka dhuleed iyo nidaamka dastuuriga dalka. Golaha wasiirada iyagoo si taxadar leh u qiimeeyay xaaladihii u dambeeyay isla markaasna isticmaalaya awoodahooda dastuuriga ah waxay buriyeen dhammaan heshiisyadii lala galay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan hay'adaha maamulka dowladeed kuwa la xiriira iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira gudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Go'aankan wuxuu quseeyaa dhammaan heshiisyada iyo wada shaqaynta ay ku joogeen dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo. Golaha wasiiradu waxay sidoo kale buriyeen dhammaan heshiisyada jira ee u dhaxeeya dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan heshiisyada iskaashiga amni iyo difaac ee laba geesoodka ah. Go'aankan wuxuu la xiriiraa warbixino iyo cadeymo xooggan oo ku saabsan tillaabooyin gurcan oo lagu dhibaateynayo gobonimada, midnimada qaranka iyo madax banaanida siyaasadeed ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale saxaafadda caalamka gaar ahaan kuwa wadamada Carabta ayaa qaadan dhigaya arrintan dowladda Soomaaliya ku dhaqaaqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo golihiisa wasiiradu ay go'aanka ku gaadheen in Imaaraadka heshiisyada laga galay dhamaantood ay waxba kama jiraan yihiin. أعلن رئيس وزراء الصومال الفيدرالية إلغاء جميع الاتفاقات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بالتعاون الأمني والدفاعي بما في ذلك اتفاقيات الموانئ والأمن والدفاع المرتبطة ببربرة وبوساسو وكيسمايو. وأشار رئيس حكومة الصومال عبر حسابه في منصة إكس أن القرار جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على وجود أعمال تخريبية تهدد سيادة الصومال ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.